dagaal culus oo khasaare geystay ayaa ka soconaya magaalada Luuqanaane ee gobolka Gedo kaasi oo u dhaxeeya beelo walaalo ah oo wada degan magaaladaasi. Dagaalkaani ayaa goordhow oo maanta ah bilaabmay waxayna dhinacyadu isku adeegsanayaan hub leh nuucyo kala duwan. Daryanka hubka culus oo dhinacyadu isku adeegsanayaan ayaa laga maqlayaa qaybo badan oo kamid ah magaaladaasi. waxaana dadka deegaanku ay sheegayaan dagaalkan inuu yahay mid kamid ah dagaaladii ugu cuslaa oo ka dhaca waayadanba magaalada Luuqanaane ee gobolka Gedo. waxa uu sababay sidii wararku sheegayaan dagaalkaani khasaarooyin isku jira dhimasho iyo dhaawac ilaa haatan ma jirto cid xaqiijin karta khasaaraha rasmiga ee dagaalkaas maadaama dagaalku weli si toos ah u soconayo sidoo kalena laga jaray isgaarsiinta magaalada Luuqanaane ee gobolka Gedo halkaas oo labada dhinac isku hajuumayaan. dagaalkaani ayaa sarka ku haya ana qabiil oo waayidii la soo dhaafay ka taagneed magaalada Luuqanaane ee gobolkaasi Gedo. sidoo kalena maleeshiyaadka maanta isdagaalaya ayaa waayidii la soo dhaafay waxay ku jireen isdiyaarin ugu dambeyntiina maanta halkaasi ay isku dagaalayaan. ma jirto ilaa hadda sidoo kale cid ku baxday maleeshiyaadka halkaasi isku diriraya oo ka socota maamulka Jubbaland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya. odayaal dhaqameedyada culimo diinka iyo dadka waxgaradka sidoo kale ilaa haatan ma jirto wax baaqa oo ka soo baxay oo ay u dirayaan maleeshiyaadka halkaasi isku diriraya oo maanta dhiiga iska daadinaya. colaadda ka taagan magaalada Luuqanaane ee gobolka Gedo horay waxa ugu dhintay dad qaali ah kuwaas oo bulshada halkaasi wada degta muhiim u ahaa laakiinse dagaaladii halkaasi hore kaga dhacay ayaa galaaftay sidoo kalena xal lagama gaarin colaadaasi. maamulka Jubbaland ayaa hore iskugu dayay inuu damiyo colaadda u dhaxeysa beelahaasi walaalaha ah waxaana madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo odayaal dhaqameedyada labada dhinac ka soo kala jeeda oo kala horeeto ugu yeeray magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland laakiinse labada dhinacba way ku guuldareysteen in ay joojiyaan colaadda u dhaxeysa waxaana dagaaladaasi ay galaafteen kal horeeto suuqyada ku yeelay magaalada Luuqanaane ee gobolkaasi Gedo. dadka barakacyaasha ah ee ku noolaa degmada Luuqanaane ayayna kal horeeto colaadihii ka dhacay ay galaafteen noloshoodii sidoo kalena waxay dadkaasi ku keentay in iska qaxaan gudaha magaaladaasi oo ay raasadaan goob ammaan ah oo ay kaga nabadgeli karaan colaadda u dhaxeysa beelaha walaalaha ah ee isku haysta awood qaybsiga degmada. sidoo kale dadka maleeshiyaadka ay halkaasi isku dagaalaya mid kamid ah ayaa hore waxay u weesay nabadoonkeedii guud beelaha maanta isdagaalaya nin ka soo jeeda ayaana galaaftay nolosha nabadoonkaasi sidoo kalena dilka nabadoonkaasi waxa xigay dagaalooyin khasaare geystay oo dad badan ay kaga dhinteen labada dhinac. lama oga goorta oo dagaal beeleedka ka aloosan magaalada Luuqanaane ee gobolka Gedo oo soo gabagababa doono sidoo kalena lama garan karo tilaabada uu qaadi karo maamulka Jubbaland oo kaashanaya dawladda dhexe ee Soomaaliya inkastoo maamulka Jubbaland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya iskhilaafsan yihiin dhinaca siyaasadda haddana colaaddu waxay tahay mid u baahan in la damiyo oo iska wada kaashadaan dawladda dhexe ee maamulka Jubbaland.